waxaa maanta ciyaar xiiso badan dhex martay kooxda STG iyo kooxda Shayba Motors iyadoo ay garoonka kubadda cagta ee Cabdi Bilaa Cabdi ee magaalada Laascaanood ay ka dhacday ciyaartan ayaa marti loogu ah kooxda STG magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo ay marti ugu ahaayeen kooxda Shayba Motors oo ka soo kicitamay gobolka Togdheer caasimadda Burco haddaba ciyaartan ayaa iyadu intii uusan haaf ku dhicin waxa hal gool laga dhaliyay kooxda STG ana ciyaarta qadar saacado ah kadib ay kooxda STG keensatay goolkii laga dhaliyay waxaana uu haafkii hore uu ku dhacay barbardhig ciyaarta ayaa haafkii dambe la soo galay waxaana hal gool shabaqa laga taabsiiyay kooxda Shayba Motors waxayna ciyaartu ku dhamaatay 2-1 halka ay labada lahaayeen kooxda ku ciyaaraysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ciyaartu markay dhamaatay waxaanu wax ka weydiinay ciyaartan galabta dadweynihii daawanayay ciyaartan xiisaha badan kooxda STG ee gobolka Sool magaalada Laascaanood oo 2-1 gobolka Togdheer ciyaaryahanadii ka socday oo runtii yaba aha ciyaaryahano aad u kulul oo carcartooda qaban hase yeeshee waxa muquuniyay laacibtinimadii faraha badnayd iyo xirfadihii aadka dheeraadka oo ahaa ee kooxda Sool caanka ku ahayd waxaana halka 2-1 kala dareeray guusha gobolka Sool halkaas oo labada goolba waxa xaqiijiyay ciyaaryahan da'yar oo aan doonayno hadaan u nahay dhalinta gobolka Sool inaan u carbino gobolka Sool line upkiisa qaramada uga safan doona idinkoo hadda ka horba toos uga daawaday ciyaarihii gobolada Somaliland uu ka ahaa ciyaar qadiim ka ahaa waana ciyaaryahanka lagu magacaabo Saciid Gurey ama Saciid Yare oo isagu double goal ka dhaliyay kooxda Burco waxaan aad ugu mahadnaqayaa kooxda Royal TV oo hormuudka ka yahay wariyaha da'da Xamsa Cabdiraxmaan oo isagu aad iyo aad uga hawlan inuu arrimaha bulshada si fiican ugu duubo lana socodsiiyo caalamka meesha ay marayso gobolka Sool iyo horumarka ka socda haday ciyaar tahay iyo haday dhanka kale ciyaartu markay dhamaatay waxaanu wax ka weydiinay ciyaartan galabta ka dhacday kabtankii kooxdaasi gobolka Sool Saciid Gurey oo isagu kana mid ahaa xulka gobolka Sool Xamsa Cabdiraxmaan Axmed Royal 24 TV magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool